بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. walaalaha kamid ah ayaa wuxuu codsaday in sheeko yar aan ka sheekeeyo. Sidaa daraadeed insha Allah waxaan rabaa in hawada idin soo mariyo sheeko gaaban oo sheeko laga dhaxlay dawladii hore Soomaaliya oo ku daabacan buugaagtii hore ee Soomaaliya. sheekadaas magaceedu waxaa la yiraahdaa magac badana qiimo sanad darana. sheekadu waxay ku saabsan tahay nin reer miyi ah ama reer baadiye ayaa biri wuxuu soo aaday magaalada. jidka intuu ku jiray magaalada intuu soo gaarin ayuu wuxuu arkay diinad markaan maqashid buugaagta hore Soomaaliya ku qoran tahay waxa la yaabaa in la yaabto laakiin wax yar si dhageyso ogaa doonto waxa laga wado diinad oo meel jiifta ayuu arkay uu ku booday uu qabsaday afarta lugood ayuu ka xiray. xogaa wili waa dareemaysa waa xayawaan marka diinad waa xayawaankee aad arki doontid. wuxuu soo qaaday diinadii magaalada markuu soo gali rabay ayaa waxa arkay cunug yariis oo dugsi u socdo. markaas wuxuu ku yiri inuu weydiiyo wuxuu wato. markaas wuxuu ku yiri adeer waxa ku weydiiyay waxa aad wadatay meeqad siisanaysaa aad ku iibinaysaa magaalada gelishid mugulaashan oo yiri. soo ninka inuu la yaabo magaca baasha loo baxshay ayuu wuxuu yiri konton. wiilku baa inuu ku qosbo yiri wallahi konton sent iska dhaaf 10 sent wax ku siisana male. wuu sii socday kadib wuxuu arkay gabadhan la yaabtay ninka mugulaasha wato ama diinada ayaa wuxuu ku diray adeer meeqad siisanaysaa baashan hadii lacag lagu gaaro bisadan. markaas inuu la yaabo magac cusub wuxuu ku yiri bisadan lacag badan siisanayo yiri. maadaama laba magac ku maqlay asoo labada magac la yaaban ayuu wuxuu u yimid odayga duqe waxa ku yiri sidoo kale yaanyuurtan meeqad siisanaysaa. waxa markaas uu yiri wallahi baasha day magac badan tahay lacag badan waa lagu helayaa. wuxuu la yimid suuqi wax ka iibsadan waaye oo duhrig markay kuleel noqdo ku xanaaqo lagu dhufto wuxuu yiri magac badana misana qiimo darana. خلاص أكو سوق وكينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.